dalalka waaweyn noocan oo kale waa ka jiri jira waxa la yiraahdaa maafiyo waxa la yiraahdaa qof ku dhaarto ku yiraahdo wuxuu xaq u leeyahay nasiib caruurtaadan dilaynaa lacag nasiib muxuu ahaa daaraad dhisaysaa lacag nasiib alaabaad kaysatay lacag nasiib haddaan ku siinayna xaq uma leedna waa ku dilayaa marka waa maafiyo jirta oo waa dad raba xaq ayan lahayn xoolo ayan shaqaysan inay dadka ku dilaan dalal badan oo dalalka hore u maray ah oo ugu dambeeyay Talyaanigu ayay ka jiri jirto waa wax caam oo la yaqaan waana iska dhamaanayaan ma doonayo inaan kuwaas ay sifooyinkooda iyo noocyada kala yihiin dadka u sheego waxaan rabaa inaan u sheego dadka ummadda Soomaaliyeed ee dhageysanaysa ee dalka gudihiisa joogta ama dibadiisa inaan xasuusiyo qof walba maskaxdaada dib ugu noqo dalkan inaan ku leenahay qof kasta oo maskaxdaada waxaad gelisaa ummadda Soomaaliyeed dhulkeedii inuu kan yahay waxaad ku talagalaysaa ama dibad joog ama guda joog meesha hoygaagu yahay oo aad ku dhalatay oo aad wax ku baratay oo aad rabo inaad ku dhaqantay inay halka tahay dal kastoo dibadda aad joogto inuusan ku ahayn dalkaaga ee uu yahay dalkaaga halka marka inaad ka qayb qaadataan nabadgelyadiisa sida uga qayb qaadanaysaan ma aha inaad qoryo qaadanaysaan oo ku soo duuleysaan ma aha waxaad qoryaha u qaadanaysaan hadalka iyo jacaylka iyo dareenka iyo u gargaaridda iyo garab istaaga ciidanka ku hawlan amniga magaalada ku hawlan ama amniga dalka ku hawlan hadduu militariga iyo hadduu biliiska yahay kuwaas inaad garab siiso oo qalinka aad qorayso garab ku siiso oo hadalka aad sheegayso garab ku siiso oo aad ogaato inuu difaacayo dalkaagii iyo dadkaagii waxaa ciidamadu ka howlgalaan booliiska haddaan ka hadlo 17 degmo waxay habeenkii u soo jeedaan inta dadku hurdo waxay u soo jeedaan badbaadada in qof waliba habeenkii uu ku socdo gurigiisa hantidiisana aroortii la yimaado marka mas'uuliyadda koowaad waxay saaran tahay booliiska iyo tan labaadna waxaa la rabaa dadku inay la shaqeeyaan booliiska oo gacan siiyaan waxa habeenkii ay u soo jeedaan 17 saldhig 17 degmo iyo gudoomiyaashoodu habeen iyo maalin soo jeedaan waxa weeye amnigiina inay sugaan oo aad seexataan waxa cadowga ayaantii dhaweyd baabuurka wata ee halkaa ku qarxiyey ma kala jecla meeluu ku qarxayo dalka meeshuu doono kaga qarxinaya hadduu doono degmooyinka hadduu doono gobolka hadduu doono meel shaqada qofkuu dilaana waa qof Soomaali ah waxaana ay rabeen intaan inay ka badan dilaan dadku ma kala socnaa laakiin tirada ku yarayd baan u maleynayaa tirooyin ka badan bay markii raadinayeen waxaa halkaas haddeen ciidamada amniga ee meesha joogay shafka u dhigin oo ku talagelin inay dhintaan oo muxuu ahaa sarkaalkii watay oo ugu horeeyay baabuurkaas joojiyay uu ku dhinto waxay rabeen dad intaan ka badan inay dilaan kuwa jaamacadda inay intay ka dileen in ka badan ka dilaan intay hooyooyinka ka dileen in ka badan inay ka dilaan bay rabeen waxaa halkaa ku dhintay ciidan booliisa iyo oo badan oo meesha taagnaa oo u shaqeynaya una soo kaleehay amnigiina ila ilaaliyaan ayaa halkaa ku dhintay waxaan degmooyinka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo 17 degmo inta degan aan ka codsanaynaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed tirada xamar degan baa ka badan mar ka badan laba ka badan saddex ka badan degmo walba inta degan inta waaxyooday tahay ciidan waa joogaa laakiin ciidanka haddii lala shaqeeyo cidiba nooma timaadeen marka waxaan soo jeedinayaa ama ka codsanayaa in degmooyinka shacabka jooga dadka booliiska ee meesha jooga ee degmooyinka la yaqaano way ka dhuumanayaan laakiin dadka kuma dhex dhuuman karaan xaafadaha ma dhex geli karaan hadday og yihiin dadku inay farta ku fiiqayaan inaannu gacmaha isqabsanno oo aannu badbaadinno dalkeenna
waxaa ummad badan ee aaminsan tahay dalka kan in duulaan lagu yahay ma aha inamadan keliya inay duulaan ku yihiin dalka kan waa dal khayraad badan waa dal meel istaraatiijiga ku yaalla waa dad dadkiisu wada isku diin yahay duulaan baa lagu yahay haddaanaan duulaankaas aanaan uu soo wada jeensan oo aanan cidna ku hadlaynin oo aannu raacno awoowayaasheen iyo dadkii xorriyada noo keenay iyo kuwii dowladnimada halka soo gaarsiiyey intii hadda burburka muxuu ahaa dalkeenna burburay ka dambaysay intaasoo marxaladooda la soo maray madax baa hoggaaminaysay dhib bay u soo mareen waa u soo jeedeen halkaa la sii gaarsiiyey haddana in halkaa laga sii wado oo meelo ka sii fogfogaan gaarsiinno nin walba inuu maanka ku hayo ayaan rabaa oo uu xusuusnaado oo aanaan dalkeenna ninna ku hadlayn dalkaagu sidaan qof walba oo annaka naga mid ah oo hadda uga fakaraayo gurigiisii uu ka soo toosay dalkaani wuxuu rabaa ummad u garata dalkaani inuu dalkoodii yahay oo ay ka soo wada tooseen oo inay gacmaha isqabsadaan oo la shaqeeyaan ciidamada intaasee muxuu ahaa aan ku boorin lahaa kana codsan lahaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool magaalada muqdisho ee gobolka banaadir iyo kuwa dibadda jira talooyinka iyo qoraallada iyo muxuu ahaa wacyigelinta iyo toosinta in laga qayb qaato ee aan la raacin waxa dhibaatada ah aan la raacin